بسم الله الرحمن الرحيم وكلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkayga socdaalka golay oo toddobaad waliba maalinta axada kaga barateen inuu ka soo baxo TV-ga caalamiga ee Soomaalisad ayaa toddobaadkan waxaan idinku hayaa Maxamed Sheekh Maxamed Roble oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaan waxaan ku booqday hoogiisa balse marka hore intaan u gudgalin barnaamijka aydin dulmaro taariikhda Maxamed Sheekh Maxamed Roble Maxamed Sheekh Maxamed Roble waxa uu kamid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Maxamed Roble waxa uu ciidanka booliska Soomaaliyeed ku biiray sanadkii 1984 burburkii dawladii dhexe kadib waxa uu la soo shaqeeyay ururkii RRA sidoo kale waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii kala duwan ee ku meel gaarka ah ee loo soo dhisay dalka Soomaaliya iyadoo u dambeysay dawladda hadda ka jirta gudaha wadanka Soomaaliya oo uu hogaaminayo Shariif Sheekh Axmed asigoo ahaa madaxa howlgallada booliska gobolka Banaadir sanadkii 2009 isla sanadkii 2009 bishii July 10keedii ayaa Maxamed Sheekh Maxamed Roble qarax lagu la eegtay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdicaziz asigoo waxyeelo ay ka soo gaartay lugtiisa bidix daawasho wacan barnaamijkeygii socdaalka golay بسم الله الرحمن الرحيم markuu ugu horeysa aad aan kaaga mahadcelinayaa sidaad iga ogolaatay barnaamijkan inaad igala qayb qaadato waa gaashaanle dhexe Maxamed Sheekh Maxamed Roble ugu horeyn barnaamijkan socdaalka golay waan kuugu soo dhaweynayaa oo barnaamijkan ugu talagalay inaan u kuurgalo xaaladda qurbo joogta Soomaaliyeed markuu ugu horeyso adigoo mahadsan aan kuugu soo dhaweynayaa iyo sida aad u aragto barnaamijkan socdaalka golay aad ayaad u mahadsan anigoo magacayga ah Maxamed Sheekh Maxamed Roble kana mid ahaa ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaan aad ugu bogay barnaamijka socdaalka golay barnaamijkan waxaan jecelahay in la sii laba jibaaro oo waqti badan la siiyo maadaama uu wax badan oo Soomaalidan wax uu ka hadlayo aad baan u mahadsantahay Abdulfataax Golay mar labaad aad aan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad maanta hooyigaaga ugu soo dhaweysay inaad barnaamijka igala qayb qaadato intaan aan u gudbin xaaladda qurbaha ugu horeyn waxaa tahay nin ahaan jiray gaashaanle dhexe oo ka shaqeyn jiray dawladii hore iyo dawladaha dambe ka soo shaqeeyay ugu horeyn waxaan rabaa inaad wax iga sheegto ciidankii hore booliska markay jirtay dawladda sida ay ahaayeen nidaamkooda sida uu ahaan jiray iyo kuwa maanta jira waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin Okay Abdulfataax su'aal aad u qiimo badan baad i weydiisay su'aashaasi markaan kaaga jawaabo horta habeen iyo maalin haddii la fiiriyay ay kala yihiin ciidamadeenii hore ee booliska Soomaaliyeed qaabkii ay ahaan jireen iyo qaabkay u dhisnaan jireen iyo kala dambeyntoodii nidaamkooda wax maalintan marka hadda aan bilowno wax dhamaanayo ma aha sheekadooda ama waxay soo qabteen ama taariikhda hataa Afrika ay ku lahaayeen ciidamada ammaanka Afrika ugu ammaanka badan ama ugu fiican ay ahaayeen ay kaalinta koowaad ay galeen Soomaaliya ciidamada booliska xilligii dawladda ay jirtay marka ciidamadaasi waxay ahaayeen ciidamo maanta dareyskooda ama wax laga qaadan karo ama lagu labasan karo qof aan ciidan ahayn horta ma jirin mana dhici jirin mana soo dhicin intay dawladii 22 sano ay jirtay dawladii ka horeeyay dareys ciidan nin wata oo qof shacab ah wax u dhima waayo shacabka waa u soo carari jiray dareyska booliska markuu arka meesha hadda maanta xoogaa markii dareyska askariga wata la arkay laga cararayo waagaas waa loo soo carari jiray qofka shacabka ciidanka booliska wuxuu ahaa umuliso ahaa habeenkii isbitaalada dadka hooyooyinka foosha qabatay hataa habeenkii iga qaadi jiray Brutus course iga geey jiray ciidan wuxuu ahaa u gargaara bulshadiisana aad u jecesha oo maalin kasta iyo habeen kastana u taagan in dadkiisa uu wax u qabto shacabkiisana uu kalsooni badan u lahaa marka taas darteedii waagii hore haddaan ka sheekayno mar sheekadeeda ma dhamaanayso ciidankaasi waxa waay 68 sano xuska hadda uu galay ciidanka booliska uu jiraa booliska Soomaaliya la aasaasay 68 sano ay sanadkan waa taariikhda ciidanka booliska la aasaasay daan dib sheego marka ciidankan booliska Soomaaliyeed ciidan taariikh weyn laho meel walba ama ciladaha maanta yaala ama qaababka maanta socda horta qof booliska hore ahaa
maanta tan hadda jirta horta siduu ula qabsado aaday uga adag tahay waayo waxaa jooga dad aan soo gaarin ciidamadii waxaa kusoo biiray ama booliiskii Soomaaliyeed kusoo biiray booliiskii hore markii ciidamo ama booliis cusub oo dhalinyaro ah oo xilligii dawladdiiba aan ogeyn oo xilligaan la soo biiray waayo 21 sano ay jiraan ciidan way noqon karaan 18 sano wixii ka badan qofka ciidan waa laga dhigi karaa sharciga booliisku waa ogol yahay inuu ninka booliis u noqdo ama askari u noqdo maadaama saas ay tahay ilada badan baa horta tii hore iyo tan maanta yaa u dhaxay taas oo ah wax maanta ama dariis booliisa wax lagu dilay ama ciidan booliisa wax rasaasayaa la maqlaa laakiin waxaasi ma jirin dawladdii xilligeedii waxay ahaayeen ciidan intelligence-gooda shacabkooda iyo ka dawlad ahaan iyo dhinac walba isku xiran yihiin u gargaara bulshada maalin walbana soo taagan shaqadii iyo waajibaadkii loo idmaday ama qaranka Soomaaliyeed uu xilsaartay sidii loogu talagalay oo u gudanayo ahaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed taas markaan intaas aan ku soo gudbo maanta marxaladda la joogo tii hore haddaad isku fiirisid aragti weyn baa u dhaxaysa sababtoo ah horta fawda wadankii wuxuu noqday wadan fawda ah oo dadkii waxaa la hormariyaa ninka aqoonti lahaa oo waxaan khibradooda lahaa oo soo maray waxaa laga hormariyaa qof aan aqoonti iyo khibradii aan lahayn dhibaatada madalka maanta ka jirta sababtaas ayaa sahlaysa in dariiska ciidanka inta la qaato ama wax lagu dilo ama dhibaato qof shacbiga loogu geeyo waxaan aragnaa hadda in booliiskii laga cararayo markay ciidan booliis ah xaafadan soo galaan in laga sii cararo sababtaas waxaa keenay ciidamada aqoonta booliisnimada ay leeyihiin oo weli meeshii la rabay aysan gaarsiiseen nidaamkii iyo sharcigii kala dambeyntii waayo qofka baniaadanka wuxuu ka baqayaa sharci oo celiye oo heer ummadii ay degsatay haday jira heerkaasuu ka baqayaa hadduusan heerkaas uu ka baqaynin oo isaga uu isleenayn war maanta booliiska 35 qodob oo shakhsiga askariga booliiska leh khuseeyaa jirta كنتش بنعرف وجدت الديسبلين بوليس كلا كشيء كناس أنت سوق قضباء عسكري سدوا اللي بتسن لها سدوا بولشات ولا رقم لها سد ما حديث أمر كذا وقادم لها سد وأسلوبت وأخذ لها سد أتى وأصلح لها وحكستها كجرة أنت سوق قضباء واحد خصيان شخصي عسكري بوليس كلا ninkaan maanta booliiska laga dhigay ma oga intaasoo qodoba inay jiraan oo looga baahan yahay inuu ilaaliyo midna uu ku xirmi kara midna uu dambi ku gali kara midna indisciplinaad uu ku noqon kara waxaasi dhanba waxaa laga yaabaa ninka waa lasoo tababaray waxaa la soo geliyey tababar uu soo qaatay 4 bilood ama 6 bilood uu soo qaatay kadib askari booliisa dhigowgii markuu ka soo baxay waxaa jiray waagii hore seminaara loo furi jiray ciidanka booliiska oo isdabajoo iskoola booliisiya ama saraakiil ha ahaada ama askar ha ahaada markastoo seminaara loo furi jiray oo sharciyada booliiska nidaamka kala dambeynta looga sheekay jiray oo lagu bari jiray waa in horta arrimahaas haddaanan la helin sahal waa in dariiska ciidanka dhibaato lagu geysto askariga wax geysanaya ama fal dambiyeedka geysanaya oo qofka shacabka oo qaaliga ah oo Soomaaliyeed oo waajibka ka saaran horta ma og yahay waa ninka maanta dariiska ciidanka haysta waajibka uu ku leeyahay qofka shacabka ama shacabka ah shakhsiga Soomaaliyeed shacabka oo shibilka xaq uu ku leeyahay xuquuqda uu ku leeyahay horta waa inuu gartaa askariga booliiska wax looga baahan yahay hadduusan garanaynin marka dariiskii wax ku dilaan dhibaato badan buu geysan karaa waxaa ka sii horeysa in la bara waxaa ka sii hor ku xigta in haddii uu fal shakhsi shibil ah uu u geysta waa in tilaabadeeda la qaadaa laakiin haddaan tilaabadii la qaadin wuxuu dhiirigelin u helaa in maalin walba fal uu sameeyo askariga laakiin haddii tilaabadeeda la qaado oo sharcigii la mariyo
haddii dunuubta ay kusoo baxdana ciqaabteeda uu mutaysto kala dambeyntii nidaamkaa la helaa. laakiin wax maanta dhibaatada ka jirta aniga oo maalin walba hadda dhacaya ama waddankeeni aan ka maqlayna waxay ku kala degadisan yihiin. waxaa waaye waxaa isku xirnaa booliiska, maxkamadaha, xabsi, asluubta, inta saddexdaas hay'adood oo amniga ka shaqeysa saasay isku xirnaa waagii hore. wada shaqeyn baa ka dhexaysa. qofka maanta haddii lasoo xiro subaxii 24 saac ka badan saldhigga booliiska laguma hayn karin. qofka lasoo xiray sidiisa eedaysana ah kadib waa in maxkamad looga helaa ogolaasho xabsi ku hayn ah oo xabsiga saldhigga waa inuu taliyaha saldhigga uu codsi weydiistay ahayd. haddana maanta waxaad arkaysaa qof 24 saac ama 48 saac 4 maalmood 5 maalmood xabsi saldhig lagu haysto. awood uma lahayn waagii hore taliyaha saldhig 48 saac ka badan xabsi qofku ma hayn jirin. xabsi saldhig wixii kasii badan waa in maxkamadda ogolaasho xabsi ku hayn ay siisaa. maahan in maxkamad loo gudbiyaa ninkaasi wixii aadiisa maxkamad la horgeeyaa ay maxkamad xukuntaa loo gudbiyaa xabsiga dhexe oo asluubta maxkamada u gudbi jirtay. maanta waxaad arkaysaa nasiib wanaag ani tii horena waa soo jooga tii dambena dowladihii dambe oo dalka ka dhashayna waa la soo shaqeeyay. marka haddaad tahay qof booliiskii hore ah caqabado badan baa aad arkaysaa oo adigana aadan wax ka qaban karin. waayo waxaad ku shaqeyn kartaa aad wax uga qaban kartaa markii nidaamkii kala dambeyntii hay-adihii amniga ama dowladda ay wada dhisan yihiin. laakiin haddii hay-adihii ay kala daadsan yihiin saldhiggii booliiskiyaa dhisan maxkamadii ma dhisna. waayo booliis haddii maanta qof uu soo qabta xaguu geynaa ma isigaa maxkamadeyn ma maxkamadeyn karo mana xukumi karo isaga. waa inuu helaa hay-addii shaqada ku lahayd. maxkamadii aa dhisan ciidamadii booliiska oo shaqeyn lahaa oo ninkan aadahiisi wixiisa heer ilaalintii wax soo diyaarin lahayd ma laha laislama shaqeyn karo. maxkamadda qof kasto ay rabto inay u yeerto waxay adeegsanaysaa booliiskay adeegsanaysaa iyada. waxay leedahay warqaday soo qoraysaa taliyaha saldhigga usoo qoray hebel hebel maxkamadda hala keeno ama hala soo qabto amar maxkamadeed waa. ninka booliiskana falgaranso isigoon arkin wax falgaransoo dembi socdo unbuu qaban karaa mooyaan wixii ka dambeeya awoodooda waxaaba iska leh sideeda maxkamad ma laha. nin booliisa intuu bax gurigaan iska soo galo iska kaa qabsado ma dhici jirin waagii hore. waa in amar maxkamadeed booliiska u wataa ama gurigaaga lagu soo galaya. laakiin maanta waxaad arkaysaa saraakiil ama nin booliis sheeganayo warqad booliis warqad maxkamadeed waaran maxkamadeed uusan wadan waxba wadan oo iska howlgalayaad arkay. hadhowdii haddii dhibaato ay ka dhacdo howlgalkaas uu wada meeluu kula tiirsanayo oo difaacaysa malaha. yaa kuu diray sarkaal hebel ayaa diray. sarkaal waa amar waa bixin karaa laakiin sarkaalka amarkiyaa soo siiyaa imaanaysa. waa in la helaa maxkamadii amarkaa soo bixisay oo howlgalkaasi dad u dirtay. laakiin adiga keligaaga go-aan haddaa qaadatid oo dirtid dhibaatadii ka timaad adaa iskale dembigeedan adaa yeelanayo. marka horta waagii hore booliiska saas u kala dambeyn iyo nidaamkaas u lahaan jiray oo u shaqeyn jiray maadaama dalkeeni uu burburay oo dhibaatooyin badan iyo marxalado badan lasoo maray. hay-adda keliya booliiska soomaaliyeed haddaad u fiirsado dagaaladii sokeeye aan ka qayb galin waa hay-adda booliiska. meelaha keliya qaranka soomaaliyeed in ka badbaaday lagu tilmaami karay ka mid yihiin saldhigyadii booliiska. in fara ku tiris mooyaane intooda badan saldhigyadii booliiska waxba lama yeelin lama burburin. hadba dadkii yimaada ciidanka booliiska waxay ahaayeen nabadda inay ka shaqeeyaan ay u heelanaayeen waa wixii loo soo tababaray. hadba maamulkii yimaada inay la shaqeeyaan diyaar bay u ahaayeen. haddii maamul qabaa'il iyo isqabqabsi iyo dagaal uu noqdan guryahooda iska joogayaan ciidanka booliiska. haddii maamul dowladeed u yimaadeen heegan waxay u ahaayeen inay shaqeeyaan waa wixii loo soo tababaray oo qaranka soomaaliyeed qarash badan oo u geliyay oo jaamacado lacag la-aana loo bixiyay wax walba loogu soo sameeyay.
marka iyadoo isaas tahay maanta marxaladii hore marxaladan maanta way kala duwan yihiin dadkii khibradda lahaa horta way yaraadeen wax wadankii ka tegay iyo wax dhintay iyo wax la dilay intaasay u badateen horta dalkeena yaaba maanta ninkii aqoon leba waa la daba taagaya taasna waxay mugdi gelinaysaa taariikhdeeni iyo wanaagii soomaali soo jireenka ahaa bay mugdi gelinaysaa aragta ahaan sida aniga warka marka maadaama saasay tahay marxaladda maanta lagu jiro hadda maanta daraad waxaan ka maqlaaya idaacadda in la yiri wariye yaa waxaa dilay nin dareyska ciidamada dowladda ku labisan baa dilaalaya horta shacab iyo ciidan maba isdhexgeli karaan qofna awood uma laha in uu dareys qaato isigoon ciidan ahayn oo sharciyeysaneen intuu isku daya awood uma lahayn intuu gashto dareys ciidan inuu suuqaasi shacabka dhexdiisa u maro mana dhici jirin laakiin hadda way dhacday waa wax maalin kasta dhacaya oo iska socdo oo iska waxay noqotay iska caadi ah waxaan u baahan tahay taas arrintaasi in horta dadka tababar badan la siiyo aqoonta haddaanan la dhisin oo aqoontooda la dhisin oo hay-adihii amniga ama sharciga oo isku xirnaa aanan la isku xirin maalin walbay dhacaysaa maalin walba yaa waxaa la arki karaa qof dareyska ciidanka wata oo wax dilay haye maanta waxaad arkaysaa military iyo bolice shaqay kala lahaayeen shaqo iskuma lahayn sidoodi qaranka soomaaliyeed ninba meel buu u idmaday uu u shaqeynaa hadda maanta bolice dagaalamaya aniga 21 sano kadib aan waxaad ii sheegtay boolis dagaalamaya yani inuusan jirin xilligii hore ee dowladda haddana ay jiraan booliskii iyo qoloyinka kale militariga ahaa waa isbarbar socdaan iyadoo taasi ay jirto haddana awoodooda maanta ma kaafiso inay magaalada muqdisho dhan gacanta ay ku siiyaan yani waxay maanta dowladda meesha ay ku joogto la dhihi karaa waa ciidamada amisom markuu burburka dhacayay oo siyaad jabhadihii ay ka saarayeen booliska ma ka qayb qaateen dagaaladaas maya ciidamada booliska kama si qayb qaadan dagaaladii sokeeyey waayo waxaysan uga qayb qaadan oo daliil aan kuu sheegaa aniga hadda kula hadlaayo 2001 barnaamij waxaa jiray European-kan ay soo diyaariyeen ama UN-ka uu waday oo hay-addii qaranka Soomaaliyeed kaliya ka badbaaday aaway la isweydiiyey qarankii Soomaaliyeed maxaa ka badbaaday kaliya hay-adda loo aqoonsaday inay ka badbaadi waxay noqotay booliiska Soomaaliyeed taasoo daliilkeeda aan kugu sheegayo waxaana laga soo qaaday Hargeysa Puntland Muqdisho Bakool Kismaayo beledweyne yaa saraakiishii booliiska laga soo qaaday iyagoo midaysan waxaana la keenay Talyaaniga Roma yaan seminar ku galnay 2001 ahayd taas marka waxay ku cadeynaysaa booliiska Soomaaliya inuusan qabiil lahayn oo meel walba uu joogo oo hay-ad kaliya uu ahaa markaan meesha imaanin waxaa u adaatay international community in hay-adda kaliya badbaaday oo maanta ka jirta dalkii Soomaaliyeed oo qarankii Soomaaliyeed kaliya ka badbaaday inay tahay hay-adda booliiska waayo kii Hargeysa joogay kii Kismaayo joogay kii Bakool joogay kii beledweyne joogay isku mid bay noqdeen isku ra'yayna ahaayeen waayo markii la isku keenay annaga jabhad hebelaana la yiraahdaa annaga jabhad hebelaana la yiraahdaa ma dhihin taas waxay ku cadeynaysaa hay-adda kaliya badbaadina iyaga ahaayeen oo dagaalna aysan ka qayb galin mar walbana ay u taagan yihiin in shacabka Soomaaliyeed ay u hiiliyaan ama ay u shaqeeyaan aad iyo aad u mahadsan tahay gaashaale maxamed sida quruxda badan oo aad barnaamijka aad ila wado waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay qof gaashaale ah oo runtii dalkiina uu u baahan yahay maxay tahay sababta kugu kaliftay inaad kasoo tagto dalkaagii hooyo oo aad maanta ka doorbido inaad ku noolaato qurbo okay aniga maanta horta
dhibaataa igu soo gaartay dalkii. dhibaatadaas oo ah 2009 bishii 7 taariikh 10 maalinta ahayd baa miina ila kacday. sababta waddanka iga soo waday waa dhibaatada i gaartay oo dalkayga anoo aada iyo aada u jecel adduunyada meel aan ku doorsada aan lahayn iga soo waday. dhibaatadaas oo sababo caafimaad dartooda ah aan u imid waddanka Jarmalka oo maanta hadda aan ku suganahay. markaad timaaday waddankani Jarmalka oo runtii qof walba waddankii wax u dhaama jirto koley nolosha waddankiisa markuu joogay nolol ka duwan uu kala kulmay markuu yimaado qurbax. markaad timaaday halkaani waddankani Jarmalka waxyaabaha aad kala kulantay oo aadan ku arki jirin markaad joogtay waddankaagii hooyo maxay yihiin? wallaahi waa fara badan yihiin. markuu ugu horeyso horta waa qabow. waxaan waddankayga aan ku arki jirin oo aan kala kulmay markaan aan ka sheekeeyay cimiladiisa qabow ah. waayo xilligaan kusoo aaday xilli qabow ay ahayd oo baraf markaas uu da-ay. waa arrinta igu mucjisada badneyd. habeenkiisaan guri u sahal subi markaan soo kacay waxaan arkay dhulkii oo wada cad. waxaan isri qiyaamo maad joogta adduunka xalay maad dhimatay. waa arrinta igu mucjisada badneyd igu cabsida badneyd. waa soo kacay iridaan soo istaagay baalkii aan dhulku fiiriyay anoo ka baqaayo baraf annaga lasoo iibinayo maanta barafkii aa go-ay xaafadda baraf malahan laleeyahay yaan kasoo tegaanin dhul ah meel barafkaba iska da-ayo oo iska dhoobana waa imid. marka horta arrintii igu horeyso oo igu yaabka badneyd oon markaan qurbaha imid aan la kulmay ugu horeyso waa taas. mida kale arrimo badan oo maanaha qurbaha haddii la yihahdo waayo dad aadan isku af ahayn oodan isku diin ahayn oo isku dhaqan ahayn aada soo dhex gashay hataa dhul ahaanna isku hogo aadan ahayn. intaas waxay kaaga baahan yihiin inaad fahamtid ood la noolaatid. waa arrin aada u adag. marka waxyaabaha igu yaabka badnaa waxay ahayd kelmado la yaab laho aniga soomaalida aan ka maqlay ka mid ah. aniga markaan imid waxaan ogaa dad soomaali oo isku hiilinayo oo isku gurmanayo oo wax walba walaalo jaabkaaga waxmaa ku jira ii bixi hool isdhahaya meel ahaan kasoo tegay. markaan halkaan imidna ninka haddii uu si qaldan ama wix dhaqankii soomaaliyeed aan ahayn oo waxyaabo qaldan uu ku socdo aada tirahdid warniyo waxaan ma fiicnaniyo soomaaliyaan nahay saas wa ha igu mashquulin kelmad la yidhahdaan horta meesha ka fahmi. war ani ha igu mashquulin. waa kelmad cajiib aho aniga aan la yaabay oon iigu horeyso qurbaha inaan ku arko. ninka isagoo dhaqan xun ama wax fool xun uu ku jiraad leedahay walaalow saas maaha aniga ha igu mashquulin. dhaqankeena soomaaliyeedna ma ahayn. kelmadaasna kelmad afka soomaaliyeed hadda ku cusub waa qaabka loo isticmaalo. horta taas waa la kulmay. waxaan kaloo la kulmay maanta qof aada oranaysa war hebelow kaali waxaan ii qaba dadkii waada ninkii soomaaliya kula joogo luuqadii lama yaqaano oo lama yaqaano qoraalkii. dadkii dawladdii aada wax ka rabtana wax kasta waxay kugu soo diraan qoraalkooda. afkaaga laguma soo diraayo aad taqaana luuqada taqaanaad laguma dhahayo waxaa lagu soo diraa keliya qoraalka dalkaas. nin baad waxaad arkaysaa warqadaa u imaanaysa warqadaasu iska haystaa meel lama aadayo waa warqadii ama waa ganaax ama waxa weeye dhibaato kale oo isaga hadduusan meesha aadina dhibaato ku keenaysa. ma helaayo marka inuu aado meeshii warqadii meel iska dhigaa wuxuu leeyahay aniga intaan ka helaayo oo qof iyo akri ama soomaalida iyadaa leysi iska meelay iska dhigaysaa. beritana dhibaato kale u keenaysaa arrintaasi. dadka soomaaliyeed mida kaloo aan ku arkay waxaa waye bulshadan ay soo dhexgaleen ama bi-adan ay markaas ay kusoo biireen ma rabaan inay la qabsadaan. waa dad reer guuraa ah. maalinbu waddan in la tago horta sabarkiina waa dadka soomaaliyeed sabar wax la yidhaahdo ma laha ma samraan. dalay iska dhiibaayaan dalkii intay wax sugi lahaayeen ay iska joogi lahaayeen 2 bilood 5 bilood 6 biloodba hadduu joogo waddan hebelaa xoogaa arrintiisa ay fiican tahay hadii la yidhaha isigoo kan joogaad arkaysa haddana inuu kaas aado.
sidii wuxuu ku noqonaa inuu wareego boorsidiisa garabka u saaran tahay kelmadda kale aan qurbaha ku helan waxaa waaye war ani ma degin boorsada garabka ii saaran taasna kelmada igu cusub ay ahayd war boorsada say garabka u saaran tahay mardanaad joogtaa ad ku nooshahay boorsadaad maxaa garabka saaray haddaad tirahda ani meel hiblaayaan fara ka leeyahay niyow marka 4 wadan hadda waa maraya kii shanadan hadda u socdaa meel hiblaaya saas leeyahay adiga wax badan oo aniga iga mucjizo igu ah oo aan la yaabay oo dhaqankii Soomaaliyeed aan ahayn aan kula kulmay horta qurbaha aan ku arkay Soomaalida ku nool in bulshada la dhaxgalo lama rabo بالمثل aniga hadda hadaan ka soo qaado hadda waxaan joogaa sanad iyo xoogaa weli ma raadin intaan dad kale aan eedooda sheegin anaa iska bilaabay weli ma raadin luqadda inaan barto bulshada inaan dhaxgalo iskumadda weli waa iska fadhiyaa sababahaas waxay keenayaan inaad bulshada aad la qabsad marka dambana adoon waxba ka faa'iidin aad dalkaaga ku laabato oo bari hadii lagu su'aalo dhaqanka wadankaasi iyo xaaladiisa ka sheekay aad ugu yiraahdo ama taariikhdiisa ka sheekay dalkii intaas ku hayo aad kula nooleen inaadan waxba ka sheegin badi Soomaalida inkastoo rag dadaal badan ama dhalinyaro dadaalayso oo luqadii iyo wax badan ay fahamtay oo bulshada dhaxgalaysa ay iska jirto taas marta waa taas mideeda kale isku xirnaan la'aan Soomaalida wax isku xirnaan ah oo Soomaalida oo isku xiran oo community ah community aan isku xirnaadeen Soomaaliland la iska warhay malaha saa hadda ay muuqato way meel walba inta hadda intaas oo qowmiyadooda joogto qowmiyad kasta naagti aw soo gasho wadankaas waa la ogyahay waa lagu xisaabtamaa sidaan ku arko laakiin anagu dad isku xiran manihin dhaqankii dalkeeni fiicnaan waa ka tagnay dhaqankan ummadahan kalena lama qabsan meel dhaxaadoon bani aadan uusan ku noolaan karin yaan dhaqan ka raadinayna anaga Soomaaliya hadaan nahay waa inaan kaanagi fiicnaa oo awooyaasheenadii ama aan ka soo gaardhay oo wanaagsanaa oo dhaqankii Soomaaliyeed oo ismartigelinta iyo wanaagga lahaa inaan ku adkaysano aan haysano iyo diintanada aan ku dheganaan ma ahan in hadiiba aad ka baxday dhaqanka ummadan kale aad la nooshahay aad ku biirtay inaad dhaqankooda aad yeelatid oo baratid oo ku biirtidna mana yeelay meel dhaxa in lagu noolaadaan rabo taasna ma noqonayso in ama ummadan lala qabsado ama taadi aad ku dhigiraad mid markastana waxaa fiican ani reey ahaanteed in dhaqankaaga suubanaa oo asalka ahaa oo wanaaga badnaa oo Soomaalinimada ah mid ka wanaagsan oo adiga aad ku samato bixi kartid malaha waayo qof dhaqankaada soo dhaxgalay malaha meesha waa dimuqraadiyad nin kasta waxa lagu tixgeliyaa dhaqankiisa iyo wuxuu ku dhaqmaa marka horta qurbaha su'aashaad iga weydiisay qurbaha waa dheereeyay meel kale aan isla aaday hadal hadaad bilowdid waa kula dheeraana Soomaaliduna waxay ku maamahdaa meeshii waa tagay waxna kuma tarin waa wax kuma taab أنا سومالي waxaan leeyahay hadaad Yurub ilaahay ba idin keenay nin walba dalka uu joogo iimaan la'aanta inta la iska dhaafo nin walba dalka uu joogo inta aamina inta wadankaaga uu noqonayso inta dal kale aad qurbo kale iyo beecad kale cusub aad baran lahayd midkii markaas aad ku soo degtay intaad iimaansatid oo dadkiisa iyo dhaqankiisa aad wax la qabsatid ani kaas ku noolo intaad wadankaaga uga noqonayso kulay dib baa loo noqonaa lama joogaay xaqiiqada waxa way ninkii Ilaahay nafta u gaarsiiyay ninkii hadda dad hadii ay meel aadaan duulaan hadii la qaado dadka iyagoo nabad qab ma soo noqdaan al hadii la galo dadka naga soo aaday Yurubna ummadan Soomaaliyeed Yurub ku soo yaacadeen iyagoo nabada kuma noqonayaan dad badan baa uga haraya Yurub laakiin intii badbaadilaa intii badbaado dhaqankii horena wax ka waxaan leeyahay dadka loo sheegay dhaqankeena wanaagsanaa ee Soomaaliyeed iyo isku xirnaantii Soomaaliyeed in la raadiyo oo la isku xirnaado hadda dalka Jarmalka aan joogno hadda aan ku noolnahay jaalidaad la sheegaa inta waa la leeyahay laakiin wax isku xiran oo aan hadda aniga aan arkay mala waa kelmadda aan la yaabay ninka hadaad weydiisido saas aan yeelan inta waxaas aan bilaa haygu mashquulina kortaan
أنا تاسع ميلو دافو عبرت إنك واحد سؤال بوحو كلها يقوم مشغول اليوم مركورت غربة دباتين كاسان فاركي وآت أفر بدر دباتة هذا ودن كاجي جوج لب كتب أتوقع واحد ودن كاجي دام هرت المهلة ما أنت نرش في عن أو يرب لجوها يستوحى دانت نرش أوارت لب ألك الصومالي ده هذا جوجا كودا marka ilaahay amarkiisa ku noqotay in la soo aado qurba haddana yaan laga tagin dhaqankeena soo banaa ragga dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha jooga meel kastoo joogaan dad waaba yaryar yihiin qurbahay ku dhasheen kuwaas maanta waxay u baahan yihiin taariikh iyo dhaqan Soomaaliyeed oo soo jireen ahaa iyo meel ay tixraacaan ay u baahan yihiin haddaan kuwaas aanan loo helin oo isku xirnaan Soomaaliyeed la tusin dadkan ay kala galaan dad bes waa bari waxa imaanaysa dalkeena nin Soomaaliyan ah kule oo luqadii Soomaaliyeed aqoon oo dhaqankii Soomaaliyeed aqoon abis iyo hooyadiisina Soomaali ay yihiin yaa bari kula soo istaagay maamulkii ama wixii kasto wadanka ka jira oo soo istaagay ninkaasi xaquu wax ka bilaabo magaca Soomaaliyeed wata laakiin muxuu wataa motor ka saaran ee dhaqanka u bartay koosariga waa Soomaaliyeed ka yahay laakiin motor ka saaran wuxuu noqonaa motor reer galbeed ah ama nooc walba nooca uu shaqeynayo iyo mabda'iyan buu wata noocaas uu noqonaa marka aniga waxaan leeyahay Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan hal isku xirnaado lama kala maarmo kana reer hebel ahaa kana saasa waagii hore reer hebelkan aan jirin waxaan la dhihi jiray reer gobol Hiblaayo gobolka Banaadir inta tahay hadii lagu su'aalo waagii hore waxaa la dhihi jiray ani reer Banaadir aan adiga geeta hadii lagu reer Baayaan adiga reerta hageeta reer Hargeysan ayaa la dhihi jiray lama aqoonin qabiil ilaahidan hadda inagu soo kacay 20 sano dhaxdood aakhiritaankan waa loo noqonaa taas iyadoo la helina dhibaatadan iyo qurbaha dhibtiisa iyo gabar Soomaaliyeed baa nin gaal guursatay iyo wiil Soomaaliyeed baa katiina Kristaan xiran baa maanta arkay iyo ciilkaasi lagama baxay ilaa ma aan la helin wanaagii Soomaaliyeed oo isku xirnaa dhaqankeena suubnaa in la adkeeyo ayaan kuwa wabillahi tawfiiq ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha qaasatan kuwaan maanta ku dandareysan ee ku nool qaaradan Yurub maxaad ugu baaqaysaa aad iyo aad mahadsantahay waxa waaye horta dhammaan Soomaalida ku nool maanta qurbaha meel kasta ay joogaan horta waxaan ugu baaqayaa walaalayaal aan gacmaha isqabsano aan dalkeena dhisano dal shisheey joogisteed waxba ma tarayso aan dalkeena dhisano dawladda maanta jirta dawladdu baa la taageeri lahaa dawladda maanta jirta aan adkayno aan dhisano aan leeyahay horta markuu ugu horeyso dadkeena qurbaha ku nool Soomaalida in la isku xirnaadaan faraha maamulka maanta dalka ka jirana in la taageero oo la xoojiyo aan heel iyo hoob aan la garab istaagno mideeda kale horta dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed yar iyo weyn saraakiil ilaa min dabley من سراكيل وسلامة يا دارهم وحن سلامة يا تريح عيدن بوليسك الصوماليات شريف شيخنا ميا ونسيب وناق أنا نسكت سجاري حلقة وحلقة قبطي أنا عن داوع من أنا وصل مغنا ودنك آدي بان وقوم محدنينا سيد وفي عن عيد من البوليس أنتو هوشوا وقبطي لذلك أن هجر لعنته أي موجيان يسقي سراكيسي آدي بان وقوم محدنينا aad baan u salaamayaa waxaana kula dardaarmayaa walaalayaal ciidamada shacabka Soomaaliyeed maanta amnigiisa anaga u dhaaranay idinkaad u dhaarateen idinkaana maanta hawshii ku dhex jira inaad dadaal muujisaan shacabka Soomaaliyeed ha idinku soo cararo mooyin iyo idinka soo cararin booliis Soomaaliyeed markii la arkay nin kasto shacab ah inuu soo cararaan idinkula dardaarmayaa amniga aad adkaysaan shacabka Soomaaliyeed uu nabad ku saaxiib hurdo idinka loo idinkuma talagelin hurdo waxaa looga talagalay ninka shacabka mar haddaad adiga askari nin hel qaaday ee qaaday waxaan kula soo dardaarmaa meel alla meeshay joogaan hawsha qaranka Soomaaliyeed sidii idinku edmaday u gud taliyaha ciidanka booliiskana
aada iyo aada baan ugu mahadcelinaa mar labaad mar saddexaad kartida iyo howlkarnimada uu muujiyey ama booliiska soomaaliyeed sida masheeraadkooda wax walba ugu dadaalay aada iyo aada baan ugu mahadcelinaa 140 salaamo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed adiga cabdifataax goley barnaamijka socdaalka Soomaalisaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa daawadayaal waxaan halkaas ku soo dawgeynayaa barnaamijka socdaalka goley oo toddobaad kaga barteen inuu ka baxo TV-ga caalamiga ee Soomaalisaad barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa gaashaalo dhexe Maxamed Yare Sheekh Maxamed oo barnaamijka toddobaadkan marti ugu haa sidoo kale waxaan mahad gaar ah siinayaa cameramanka Aadan Xaaji Amiin oo si weyn iga caawiyay waa farsamadii Abi Katejo waxa barnaamijkan maanta idin daadinaya anigoo ah Cabdifataax Xuseen Goley intaan barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.